waa mahadsantahay Kawsare magaalada Boosaaso madaxweynaha waxaa ku kulansan maanta madaxweynaha Puntland Saud Cabdullaahi Deni iyo agaasimaha BSF Maxamed Cismaan oo hore madaxweyne Deni uu sheegay in xilka ka qaaday sidoo kale kulankaas waxaa goobjoog ka ah qaar ka mid ah ismada gobolkan oo uu hogaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo isma kale oo ka tirsan ismada deegaamadan waxaana ay ku shirsan yihiin madaxtooyada Boosaaso iyadoo ay kulankan uu ka horeeyay laba shiro hore oo madaxweynuhu la yeeshay ismada oo u kala dab qaadayay madaxweyne Saud Cabdullaahi Deni iyo agaasimaha BSF Maxamed Cismaan oo horay khilaaf xilka qaadis ka dhashay uu sababay dagaal magaaladan ka dhacay marka way shirsan yihiin warinta dheer oo ka soo baxay ma uu jiro ilaa imikana shirkoodii ayaa ka socda madaxtooyada laakiin inta la og yahay waxa ay ka wada hadlayaan arrimihii khilaafka Boosaaso markii hore bay ka soo bilowdeen oo uu dagaalku ka dhashay si xal loogu raadiyo arrintaana waxa uu gogol xaalaya ismada oo horay sidaan bilowgiiba ku sheegay madaxweynaha laba jeer hore la kulmay horeyna go'aamo uga soo saaray arrintii Boos ka dhacday marka maxay waxyaabaha ugu waaweyn laga filayo kulankooda Kawsare sida ilaha xogaalka sheegayaan kulankani maanta kuma soo gabagaboobayo laakiin gogol xaarbu wuxuu noqonayaa kulamo sii socon doona oo kuwaas oo xal waara ama xal loogu raadinayo xaalad heshiis rasmi laga gaaro Boosaaso laakiin waxay ku dameynayso lama oga